عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta laxdad kastoo joogtay nolosha ama meel kastoo joogtay noloshaada waqtigaaga waxay istiraahdaa alxamdulillah dheh alxamdulillah ilaahay meeshan kugu nooleysiyay alxamdulillah waxaana haysatid alxamdulillah dadka kugu dursan ilaahay markaa ku xamdidina ilaahay ku ziyaadin doona noloshaada arki doonta waxaana haysatid oo ku barakooba oo ku fiicnaada insha Allah markaa ila dhahay alxamdulillah hordhacna noqoto maanta waxaan doonayaa intaan ila wadaago arrin ku saabsan waxbarashada maanta markaan ku weydiiyo su'aal waxbarashada waa maxay isleedahay talo badanka dadka qaarkood markay leedahay waxbarashada waxay arkaan iskuul bay arkaan laakiin haddaan ku yiraahdo iskuulku maaha meeshii badanka dadku wax bartay ay ka soo wala baxeen ama dad qaarkood wax bartay badanka iskuulka ma soo wala baxeen marka harkaysa waxbarashada iyo iskuulku waa laba shay kala duwan inkastoo maanta iskuulku ay tahay xaruntii lagu talagalay dadku inta wax soo bartaan laakiin waqtigan aan joogno waxa arkaysa iskuulka iyo waxbarashadu intay tahay laba shay kala duwan arkaysa dad noloshooda ku guuleystay oo meel sare jooga oo nasiib daro iskuul ku guuldareystay arkaysa dad ka soo baxay iskuulka oo shahaado waaweyn haysta laakiin cilmigoodu marka eegtid ay hoos u tahay amba sidii loo baahnaa dadku wax u bareen jaamacadaha marka joogtid ka soo qaad tusaale waxa arkaysa macallin wax ku dhigaya oo isleedahay ninkan hagu wax ka soo bartay sidoo kugu dhigay waa maxay markii kastana canaaninisid macallinka wax ku dhigaya ay isleedahay qof fiican ma la waayay marka harkaysa iskoolku ma soo saar badanka dadkii wax loo baahnaa cilmiga si loo baahnaa uguma dhigo dadka badanka wax soo bartayna amba cilmigoodu meel sare ay tahayna badanka iskoolka ma soo bixin tusaaladan soo qaadano nin aana oo magaciisu leeyahay Albert Einstein wuxuu soo qaatay tusaaleer buu soo qaatay wuxuu isku keenay xayawaano badan buu yiri hadda isku keentin buu yiri ka soo qaad libaax daanyeer iyo kalluun aka tiraahday saddexda xawayaan war maanta imtixaankiin waxa weeyaan ma garanaysid saddexdiinu geedka la koraya isku diyaariya geedka ba koraysin saddexdiin marka wuxuu yiri waxa arki doontaa kalluunka oo ismoodaya intuu ka hooseeya xayawaanada kale oo markii kasta ismooday ninka ugu liisa oo iscaanaanay markii kasta laakiin haddii dib u yarogtid arintan kalluunka soo qaadido ku dhaxridid bada waxa arki doontaa kalluunkaayo ismooday xayawaanada ugu fiican amba xayawaanada ugu horeeya taa waxay ka dhigan tahay dadku iskoola mid maaha qof kasta maanta hada soo qaadid imtixaan mid ka wala bartid taa kama dhigno ki ka ku guuleystay imtixaanka dadka kale ku horeeya kan ku guuldareysana dadka kale ku hooseeya laakiin waxay ka dhigan tahay qof kastaba imtixaankii loo baahnaa si fiican lagu marin marka adiga sacnaanan hada tahay dadka iskoolka ku guuldareysta iskoolkan ha canaanan laakiin sidee waxyaabaha u jiraan ayaa wax badan laga bedeli karaa insha Allah haddii iskoolka ku guuldareystay taa kama dhigno noloshaada kharaas way ku dhimatay laakiin waxa ogaataa sidaan ku soo sheegay dad badan oo noloshooda ku soo guuleystay miisoo waxay iskoolo ama shahaado waaweyn ma haystaan marka niyad jabin waxa isku dadaashaa su'aasha inta ka jawaabtid su'aasha kaliya tada ka jawaabtid wax waa baran karaysaa iskool ha noqoto ama naftaada wax u baritid laakiin wax waa baran karaysaa su'aashan waxa weeyaan maxaa jeceshahay inta baritid maxaa jeceshahay inta baritid hada ka jawaabtid maxaa ku raaxaysanaysaa marka wax baranaysid ama marka wax xinaysid taa hada ka jawaabtid waxyaabo badan baa ku fududaanaya waxa marka wax baranaysid wax arkaysa adoo dheelitiran adoo faraxsan oo marka wax barashada bilaawaysid adoo ku faraxsan oo waqtiga haba yaraatay xisaabeyn oo dhiganaya marka wax jeceshahay baranaysidna waa raaxaysanaysaa oo taa dhibaato kugu noqonayo marka insha Allah ku dadaal sida uu leeyahay waxaan jeceshahay u baratid marka ilaahayna ku fududaanaya maanta haddii adduunisa wax inta baratid aalado badan baa jirta amba ilaahay waxaan u nasiiyay nicmado internetka kombiyuutarada waxa arkaysaa adoo xaafadaada iska jooga ayaa waxyaabo badan baran karaysa waxoo doon waa baran karaysa xaafadaada sariirtaada adoo iska jooga waa baran karaysa marka aan ka faa'iideysano ilaahay nicmadahan u nasiiyay sidii wax u baranay nafteena haddii iskool soo dheegan ha ka walwalin waxba hadda dunis digo ku takhasus shahaado waaweyn soo qaado laakiin hadda dunis wax baratid markii kastana wax isku daydaa barashadaadu ha noqoto mid adigoo isku dadaashid oo horumar ku gaarsiinaysa iskoolka ha ka walwalin hadda iskool soo dhigan oo ku guuldareysatay ha ka walwalin noloshaada kuma khasaarin way ku fududaad doontaa hadda wax baratid waxbarashaduna aaladaha kamid ah ku gaarsiinaya horumar ku gaarsiinaya inta noqotay shakhsiyad mutakaamila
diin haysta cilmi haysta akhlaaq fiican leh oo isku dheelitiran ayaa noqon karaysaa haddaad isku dadaashay adigu iskoolkana insha allah waxaan rajaynaynaa intuu soo saaro shakhsiyad dadka ka mid ah marka waxaan ku leeyahay insha allah waxaan baran karaynaa waxaan isku dadaalnay insha allah dadka wax barana waxaan ku dadaalnay insha allah sidii wax u baran lahaayeen dad shahaadaha waaweyn haysana ama shahaado waaweyn soo qaatana intay markay ka dadka iska sareysiin u arkin dadka inta wax ka sareeyaan ee suraan waxaan haystaa maanta diplomka shahaadada weyn oo maanta dadka ugu sareeya marka aragtid macallimiin qaarkood su'aalo weydiisid su'aasha ku jawaabi kara laakiin mutakabbirnimo yar ku jirto waxa leedahay cilmiga qofka uu soo bartay waxba ka yarsiya marka hadii aan wax soo baranayna qof kasta maanta arday kasta meel kasta uu joogana dadka sidii aan wax ugu macnayn karayna ama ugu tabi karayna fariinta aan isku dayno insha Allah sidii waxbarashada miraheega ay dadka kalena u siin lahayn sidii waxbarashadu ay noqon lahayd wax dadka ku faafa maanta hadii qof lacag siisid lacagta way ka halaabaysaa ama lacagta ma haysanaysid laakiin qof hadaa wax bartid waxbarashada waxay noqon doontaa mid faafta oo dadka ku dhangaarta adiguna hawa yaraat wax ka naaqusmay ma jirto marka walaalaha ku dadaal wax sida u bar lahayd ama walaalaha sida wax u shargaran lahayd sidii aan ugu noqon lahayd bulsho ama dad mutakaamila oo dad fiicana oo dad sidoo rasuulku doonayay aan noqon lahayn insha Allah anoo hadalka ugu sii dheeraynayn waxaan ku leeyahay waxaan wala barano sidaan guul u gaar lahayn waxaan wala barano sidaan u noqon lahayn bulsho fiican waxaan barano sidaan hubka adduunka ugu waaweyn aan haysan lahayn maanta bulshayaasha dadka horumar gaarayna ama dawladaha horumar gaarayna waxay ku dadaalaan waxa kamid ah waxbarashada marka adiga ilaawanaya hadii iskoolka wax ku baran karaysid baro hadii naftaada wax u baran karaysid wax baro waxaan ku leeyahay assalaamu calaykum waxaan ilooway videoga soo socota waxaan la wadaagi doonaa arrin dhalinyarta taabata arrintaana wax kale ma aha waa jacaylka ayaan ka sheekaysan doonaa insha Allah videoga soo socota jacaylku wuxuu ka dhigan yahay waxyaabo badan ma ka sheekaysan doonaa jacaylka sidaan dhalinyarta aan u arki lahayn jacaylka wuxuu ka dhigan yahay insha Allah waxaan ku rajaynayaa maalin fiican haween fiican waqti kasta oo joogtidna isku day sidii aan u noqon lahayd qof wax barta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh